boyle wato oo dhammaan adeega arrimaha bulshada iyo isu socodka hakad geliyay ayaa ku dhuftay gobolada dhexe ee dalka Mareykanka oo loo yaqaan Midwest oo gobolka Minnesota ay Soomaalidu ugu badan degan tahay qabowgaas oo keeni kara dhibaatooyin aad u fara badan oo ay ka mid tahay in haddii uu qofku bannaanka taagnaado muddo 5 daqiiqo ah uu jirkiisu dhinto taasoo ay ka digeen khubrada ku xeel dheer arrimaha saadaasha cimilada dalka Mareykanka iyadoo la xiray xarumaha waxbarashada qaar ka mid ah shaqooyinka duulumaadyada iyo adeega kale cabdishakuur maxamed cabdi oo ka mid ah taariikhleyda isaga kala goosha gobolada dalka Mareykanka wuxuu iiga warramayaa dhibaatooyinka uu kala kulmay qabowga dabaylaha wata wax gawaari istaarmaya male gawaaridan inay istaarnaadaan weeye si ay san wax walba aysan frozen u noqon aysan u qaboobinin waxaan wax horay loo arkay maaha 1936 baan u malaynayaa in aan tviyada ka maqlay inay u dambeysay qabowgan oo kale dabcan gaariga baa saaka la rafanaysay waxa saaka la goostaa gobolada goorma soo gashaa meeshan hadda 3 beri waa joogaa baan u malaynayaa shalay rar baan qaaday waxaan u socday meel 500 mayl ah oo Indiana la dhaho markaan 120 mayl sii socdo waxa la dhahay meesha waa xiran tahay meel furan male Midwest oo dhan meel shaqeynaysa male waxay noqotay rarkii inaan haddana 3 saacadood haddana aan soo drive gareeyo soo noqdo oo aan magaalada ku soo noqdo Yusuf Farax Fiidow wuxuu ka mid yahay ganacsatada degan suuqa weyn ee Carmel ee dhaca bartamaha magaalada Minneapolis waxaana weydiiyay ganacsigiisa iyo saameynta uu ku yeeshay qabowga ka dhacay gobolkan meeshan waxaan ku sameeynaa cashuur celinta waqtiga waxa lagu jiraa cashuur celinta waqtigeedii marka sida u jeedid maanta magaalada la socoto magaalada maanta aad u qabowdahay ilaa 50 degree gaartay last night so maantana suuqa aad u liito dadka ma joogo oo Soomaalidu waa soo bixi weysay Minnesota Halal waa dukaan ay Soomaalidu hilibka iyo waxyaalaha kale oo qoto daruuriga ka gataan Cabdisalaam ayaa iiga warramaya waxyaalaha uu la kulmay markii uu ku dhuftay qabowgan ku yeelatay maanta dadku qabow baa jiray dad guryahooda kama soo bixinin marka aad buu business isla waxa maanta u ah ma sha Allah aad buu hooseeyaa maanta maxaa ka qaadan jiray hilibka haddii la kala grocery-ga caanaha qudaarta waxaasoo dhan ka qaadan jiray maanta cidku waa aad ba u yaraayeen dadku waa noo yimaadeen laakiin dadku aad ba u yaraayeen cabdihodan cabdulaahi faarax oo ka mid ah taksiilayda ku shaqaysta baabuurta uberka loo yaqaano waxaana weydiiyey su'aalo ku xeeran shaqadiisa wallaahi saameyn waan ugu yeeshay hadda qabow horta aad u badan baa ka dhacay gobolkan Minnesota ee dalkani Mareykanka ilaa shalay ilaa maanta ilaa caawa waa qabowgii ugu xumaa soo maray baa la yiri 23 sano ka hor dadku guryahoodii bay ku sugan yihiin hase ahaatee annagu waxaan nahay taksiilayaal ama uber le marka wicitaanka iyo orderka dee aad u badan yahay maadaama dee dadku ay guryahaas ku jecel yihiin gaari iska kululoo dee markaas intuu qaado oo ama meeshii ay kasoo adeeganayeen la geeyo kabacdina laga soo celiyo aamina jaamac deble waa mulkiilaha maqaaxida East Village waxaan weydiiyey saameynta uu ku yeeshay qabowgu maqaaxideeda magaceeda waxa la yiraahdaa East Village Grill Restaurant maqaayad magaalada dhexdeeda ku taal oo caana oo dad badan oo maaragtay dadka shaqeeya dawladda u shaqeeya especially xafiisyada ka shaqeeya ay yimaadaan way bay ahayd maanta 80% baynu maaragtay ganacsiga uu hoos u dhacay alxamdulillah ilaah baa mahadle kulay dadku wax hadda qof wax ku noqday ma laha laakiin dhibaato badan ayuu ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa magaaladaba u geystay Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka